Somaliland waxay ku suntan tahay ana hadda labada dhigood furo aniga farqiga noo dhaxeeya ku sheegay anigu waxa ku suntanahay midnimada dawladnimada adigu aad shalay toola aad caanaha iyo lagu siinaayay muuska ayaan anigu keenay حسنوا على وضع بقول كوعليو سومالي لا لا أنت سومالي من كتير مش نفس الدنيا أصلا كنا فيه وسومالي لا كوحد جبار كني معتنا رحم الله وحكومري إن الشمس قطعكيه بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي وناكسن داوديال كسو دواada qodobada barnaamij wareedkeena qaybtan aad ku daawan doontaan waxa kamid ah Turkiga oo Somaliland ku amray inuu ka laabto aqoonsiga Israa'iil iyo Xuutiyiinta dalka Yemen oo ku hanjabay in gantaale ay la dhici doonaan magaalooyinka Somaliland sidoo kale waxaad ku daawan doontaan barnaamij wareedkeena Boorama oo dagaal culus oo ka bilowday iyo ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya oo Somaliland ugu hanjabay in dagaal toos ay ku qaadi doonaan haddii 24 saac gudahooda ay ka laaban waayaan aqoonsiga ay siisay dawladda Israa'iil qodobadaasi wixii nagu soo kordho oo qayb ka yihiin dagaal beeleedyo cusub oo ka qarxay magaalada Saylac ayaad barnaamij wareedkeena ku daawan doontaan haddii ay tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelkeena Gundhiga Media fadlan ka mid noqo saaxiibada sida joogtada ah noogu xiran haddii aad hor noola joogtana waad ku mahadsantahay la socodkii la jaanqaadka wararka degdega ah ee halkan aan ku soo baahino soo dhawaada saaxiibayaal mar kale aan ku bilaabay dawladda dalka Turkiga ayaa ku hanjabtay in dagaal toos ay ku qaadi doonto sidoo kale tan ay ilaalin doonto madaxbannaanida Soomaaliya haddii ay Somaliland ka laaban weyso muddo 74 saac gudahooda aqoonsiga ay siisay dawladda Israa'iil dhigeeda ayadoona Israa'iil ugu hanjabtay in gantaale ay ku garaaci doonaan saacadaha soo socda iyadoona sheegtay in bayaan sax hadii ay ka soo saari weyso dalka Israa'iil aqoonsiga ay siisay dawladda Somaliland in ay ku qaadi doonto weerar toos ah sidoo kale arinta waxay imaanaysaa xil madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ay qadka telefoonka ku wada xiriireen sidoo kale tan ay isla meel dhigeen madaxweynaha dalka Turkiga Rajab Tayyip Erdogan in ciidamo dheeraad ah la keeno gudaha dalka Soomaaliya kuwaas oo qayb ka noqon doona nabad ilaalinta ciidamada u jooga gudaha dalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaana ciidamadan ugu dan leh inuu ku waabsado dawladaha dariska ah sida Kenya, Ethiopia iyo sidoo kale wadamada doonaya in dhawaanahan bay aqoonsadaan maamulka Somaliland madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo dhawaan khudbad xasaasi ah ka jeediyay kulan ay yeesheen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si cad ugu horyimid aqoonsiga Israa'iil ay siisay dawladda Somaliland asagoona ku tilmaamay waxba kama jiraan wuxuuna cod dheer ku yiri madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Somaliland waa gobol kamid ah Soomaaliya taas oo u muuqata in waqtigaani madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu ku hoolan yahay sidii loo soo afjari lahaa aqoonsiga ay doonayso maamulka Somaliland ayaa muddo 30 sano ka badan waxay baadi goobaysaa aqoonsi ay ka heshay dawladaha caalamka waxaana markii ugu horeysay aqoonsaday dawladda Taiwan waxaana hadda raacay dawladda Israa'iil madaxweynahooda ama ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaana ku dhawaaqay in dawladda Somaliland ay u aqoonsadeen dalka madax bannaan Soomaaliya taas oo kaliftay in banaanbaxyo waaweyn oo lagu dabaaldegayo aqoonsiga Israa'iil ay ka dhacaan gudaha maamulka Somaliland gaar ahaan magaalada Hargeysa magaalooyin dhowr oo ka tirsan Somaliland ayaa ka dhacay banaanbaxyo looga soo horjeedo arintaasi waxaana kamid ahaa gobolada dagaal beeleedyada muddooyinkii ugu dambeeyay oo ka dhacay sida gobolka Maroodijeex Salal iyo sidoo kale gobolka Awdal dhamaantood ayaana ka hor imaaday aqoonsiga Israa'iil waxayna bedelkood soo qaateen calanka Falastiin kuwaas oo ku sheegay inay garab taagan yihiin walaalahooda dalka Falastiin ayagoona ka dhiidhiyay xasuuqa Israa'iil ay u geysteen dalka Israa'iil waa dalka Falastiin si kastaba ha ahaatee xaaladahan ayaa imaanaya xilli dhawaan dalka Soomaaliya ay ka bilaawdeen doorashooyinka golaha deegaanka taas oo keentay in markii ugu horeysay 50 sano kadib gudaha dalka Soomaaliya ay ka dhacaan doorashooyin qof iyo cod ah Somaliland ayaana ku noqotay dhabar jab toos ah dawladda Soomaaliya oo markii ugu horeysay muddo ka badan 50 sano gudaha dalka Soomaaliya ka qabatay doorashooyin golaha deegaanka kadib markii natiijo ku dhawaaqistii doorashooyinka ay dawladda Somaliland la soo baxday aqoonsi ay ka heshay dawladda Israa'iil ra'iisul wasaaraha dalka Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaana ugu dan lahaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dhadhamsiiyo qaraarka ka dhanka ah saldhigga military ee laga dhisayo degmada Warshiiq taas oo u muuqata in waqtigaani uu noqon karo dagaal culus oo dhaxmara dawladaha dariska ah iyo kuwa caalamka oo waqtigan isku haysta badweynta badda cas si kastaba ahaatee madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ciidamo dheeraad ka dalbaday dawladaha Djibouti Masar iyo sidoo kale dalka Turkiga kuwaas oo ugu dan leeyahay inuu ku difaacdo midnimada ummadda Soomaaliyeed Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay waxa ka sii baxayay ciidamada u jooga nabad ilaalinta balse waqtigaani madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa go'aansaday inta uusan dhamaanin muddo xileedkiisa in dalka ay soo gaaraan
18,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka dalka Turkiga sidoo kaleetana waxa uu sheegay in 9,000 oo askari ay ka imaan doonaan dalka Masar halka Djibouti ay ka imaan doonto 10,000 oo askari qaraarkaas ayayna meel mariyeen xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inkastoo wali aan si cad loogu dhawaaqin haddana waxaa la filayaa in maalmaha soo socda xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya inay yeeshaan kulan weyne ay ugu arrimsanayaan sidoo kaleetana ay ka doodi doonaan ciidamada cusub ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo qandaraaska kula soo galay dowladaha Masar Turkiga iyo sidoo kale dalka Djibouti madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa caawa waqtiga telefoonka kula xiriiray madaxweynaha dhigiisa ee dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geele waxayna ka wada hadleen masiirka dalka Soomaaliya gaar ahaan madaxbannaanideeda oo soo farageliyeen dowladaha shisheeye sida dowladda Israa'iil xalayna magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeeda arintaasi kadib intaasi waxaa xigay in ciidanka Soomaaliya qaarkood ay ku hanjabeen in dagaal toos ay ku qaadi doonaan maamulka Somaliland haddii ay ka noqon waayaan aqoonsigii ay been abuurka ahaa ay sheegeen in qaarkood ay u badinayaan in aqoonsigaasi uu yahay mid kaliya telefoon ku eka sidoo kale tan qaarkood waxa ay sheegeen in aqoonsiga Somaliland iyo Israa'iil uu yahay mid AI laguna sameeyay aaladda macbalka ah si kastaba ahaatee waxaa la filayaa in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud arintaasi bedelkeeda oo ciidamada dalka Turkiga Masar iyo sidoo kale Djibouti uu keeno gudaha dalka Soomaaliya sidoo kale maalinta beriya waxaa la filayaa in garoonka Stadium Muqdisho ay ka dhacaan banaanbaxyo waaweyn oo looga soo horjeedo go'aankii ay gaareen dowladda Israa'iil gaar ahaan ra'iisul wasaarahooda Benjamin Netanyahu taas oo ka dhan ah dowladda dalka Soomaaliya waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay dalka Israa'iil ay sheegayeen in Soomaaliya waqtigan ay qorsheynayso in ay garab siiso dowladaha quwad-weynta ah sida Turkiga sidoo kale waxaa ka mid ahaa dowladahaasi dowladda Masar oo dagaal xoogan ama sidoo kale hanjabaado hawada isku mariyeen dhawaanahanba dowladda dalka Israa'iil ayaana markaani jaanis u haysata in saldhigyo waaweyn oo military ay ka dhisto gudaha dalka Somaliland ayadoona sheegtay in Somaliland ay u aqoonsatay dalka madax bannaan Soomaaliya arintan sidoo kale waxaa gadaal ka riixaya dowladda dalka Taiwan oo saaxiib dhow la ah dowladda Israa'iil mid kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee Ingiriiska ayaa sheegay in Somaliland ay tahay dal madax bannaan sidoo kale tan wuxuu sheegay in uu rajeynayo in dhawaan dalka Ingiriiska inay u aqoonsato mid kamid ah dalalka Afrika ee kamid ah dalalka madax bannaan Soomaaliyana aysan qayb ka ahayn dalka Somaliland si kastaba ha ahaatee waxaa la filayaa in qaraarka ay soo saari doonaan xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee ka dhanka ah in la keeno ciidamada dalka Turkiga Masar iyo sidoo kale dalka Djibouti magaalooyinka Soomaaliya in ay meel mari doonto ayadoona falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda uu ka mid yahay mid lagu magacaabo Cabduqaadir Abuukar Cali oo ka mid ah falanqeeyaasha arrimaha siyaasadda Soomaaliya gaar ahaan arrimaha military ee dalka si weyn loogu yaqaano in uu ka qayb qaatay falanqeymihii arrimaha dagaaladii lagu jiray kooxaha argagixisada ah ee Al-Shabaab si kastaba ahaatee arintani waxay maraysaa meeshii ugu dambeysay waxayna dowladda federaalka Soomaaliya go'aansatay in si toos ay ugu hortagaan dowladda dalka Israa'iil iyo faragelintii ay ku sameysay kala qaybinta masiirka iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed iyadoona maamulka Awdal State Movement dhismihiisa waqtigan uu ku hoolan yihiin xukuumadda ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Bare dhanka kalena saaxiibayaal Xuutiyiinta dalka Yemen ayaa sheegay in gantaale ay ku garaaci doonaan magaalooyinka Somaliland haddii muddo 24 saac gudahooda ay ka laaban waayaan aqoonsigii Israa'iil ee been abuurka ahaa waxayna sheegeen in Israa'iil ay doonayso in saldhigyo waaweyn oo military ay ka dhisto gudaha dalka Somaliland gaar ahaan dekedaha ay badweynta Ocean waa badweynta badda cas ku yaala ay adeegsato maamulka Somaliland taas oo ay ka mid tahay dekeda Laas Qoray waxayna sheegeen Xuutiyiinta dalka Yemen haddii muddo 24 saac gudahooda Somaliland laga heli waayo bayaan sax oo ay ku sheegayaan in waxba kama jiraan ay tahay aqoonsiga Israa'iil ay ku qaadi doonaan waa ku garaaci doonaan gantaalada nooca ridada dheer ah waxayna sheegeen in Somaliland aysan haysanin wax difaaca hubkaasi ayadoona shacabka Somaliland baraha bulshada ay ku muujiyeen cabsida ay ka qabaan in Xuutiyiinta dalka Yemen ay weerar toos ku soo qaadaan gudaha dalka ama gudaha maamulka Somaliland si kastaba ahaatee wixii aragtidaada qaybta hoose ee faalada nagu reeb
waxaana xusid mudan in xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya oo asal ahaan u dhashay maamulka Somaliland ay si cad u diideen xilalkoodiina isaga casileen arrin la xiriirta in aqoonsiga Somaliland Israa'iil ay ka heshay ay godood ka keeneen dowladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda ugu horeysa qaybta hoose ee faalada nagu wareeb aragtidaada wax dhista ma Somaliland ayaa kula saxan oo aqoonsigeeda meel marsatay mise dowladda Israa'iil ayaa soo faragelisay madax banaanida dalka Soomaaliya mise waxa qaldan madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo difaacaya midnimada dalka Soomaaliya sidoo kale tan waxaad aragtidaada ka dhiiban kartaa ma kula saxan yahay in madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waqtigaani oo lagu jiro kala guur siyaasadeed uu dalka dib ugu soo celiyo ciidamo shisheeye oo ka kala imaanaya dowladaha Turkiga Djibouti iyo sidoo kale dalka Masar qaybta hoose ee faalada nagu wareeb tan iyo barnaamij wareedkeena kan xigana nabadgelyo.